الرحيم daawadayaal kusoo dhawaada channelkeena Rawaan Channel waxaan idin wadnaa qiso aad cajiib u ah nin isaga oo la soo aasay kadib reerkiisa dib ugu soo laabtay balse inta aan barnaamijka u guda gelin waxaa codsi inaga ah in aad channelka subscribe saarto like-ta iyo commentiga iyo share-kana aadan ka iloowin channelkeena mar labaad kusoo dhawaada channelkeena Ramadaan Cala Diin wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo ka shaqeeya meherad cuntada lagu kariyo waxaa dhaawac ka soo gaaray isaga oo ay ku soo rogmatay digsi weyn dhaawacaas oo jirkiisa boqolkiiba 70 gubniin ka soo gaaray kadib waxaa dhacday in Ramadaan shaqo la'aan ku dhacday stress ayuu qaaday waxaa dhacday marka in uu go'aansaday subaxyada ka mid ah in uu isaga tago reerkiisa oo aado magaalo kale magaaladaas oo ah magaalada Alexandria caasimadda labaad ee dalka Masar waxaa dhacay in Ramadaan uu tagay Alexandria balse muuqaalkiisa iyo gubniinka qoortiisa iyo jirkiisa inta badan ku yaalay dartiisa meheradaha badankood ay u diideen shaqo balse nasiib wanaag wuxuu helay nin Syrian ah oo meesha meherad ku leh ninkaas ayaa wuxuu yiri waxaan ka qaadayaa imtixaankii kadibna Ramadaan waxa uu ku guuleystay in uu shaqada uu sheegay in uu yaqaano uu boqolkiiba boqol yahay nin farsamadaas yaqaano shaqadii markuu helay kadib Ramadaan wuxuu reerkiisa ka maqnaa muddo 3 bilood ah dibna oo lama soo hadlin reerkiisa maxaa yeelay maskaxdiisa telefoon ma xifdin karin mobile ma uusan haysan waxa dhacay subaxyada kamid ah isaga oo fadhiya mehradii ayaa waxa dhacday in nin saaxiibkiisa ah uu ku yiri Ramadaan kaale fiiri Facebook waxa ku jiro wuxuu ahaa nin Ramadaan aad iyo aad ugu ekaa oo aan laga garanaynin oo meedkiisa laga helay wabiga Nailka ee magaalada Qaahira kaas oo reerka Ramadaan lagu wareejiyay meedkii si ay u soo aasaan Ramadaan arintii waxay ku noqotay arin fajiciso ah isaga oo awoodin in uu shaqada fasax ka soo helo ayuu wuxuu go'aansaday xitaa hadduu shaqada ku weynayo in uu reerkiisa iyo hooyadiis soo aado wuxuu isla markii u soo baxay magaalada Qaahira balse waxa yaab ahayd iyada oo loo fadhiyay tacsidii Ramadaan in Ramadaan oo aanan wax muuqaalkiisa ka duwan aan lahayn uu reerka albaabka uga soo galo waxay noqotay arin aad looga naxo hooyadiis hadal ay sheegto iska daayay naxdin darteed ayaa waxay miir daboolantay waxaa dhacday kadib markay maamada soo kacday Ramadaan wuxuu ku yiri wiilkaaga ayaan ahay aniga ma dhiman qofka dhintay way eg yahay balse waxa lagu gartay su'aalo qaar la weydiiyay inta ay sheekadan ku eg tahay